بسلكه وأخطاب الكملا بهم تقدير المجتبى ومرسلا بهداهة السماء وأرض كذا الملا ترطان بذكري طيب مرتلا ثبتنا بالدين حسننا محصلا جواد بجودك كجود حفظنا باللطف رحمة معجلا خيبة يزولنا صلى الله عليك سوبر النبي صلى الله عليك سوبر النبي سيدنا يرزقك صلى الله عليك سبحانه النبي صلى الله عليك سبحانه النبي صلى الله عليك سبحانه النبي سيدنا يلسفك أذيك كوحي صلى الله عليك سبحانه النبي صلى الله عليك سبحانه النبي صلى الله عليك سبحانه النبي adduunyada dartii kii loo ahaysiiyo ambiyada dhammaan ubaxiisa kay tahayow asal baa taho inta kalena waa faracay axmed nuur yow naajib argaanahaye baabkii allow bidhan quruxsanow nebiyow bahalyowga aan qabna xaalka nagu baahiyo bashiirow qalbiga aawaa na boogyaaye na bogsiiya xabiiba bilaa shuruudiine الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد أقدم إليكم تحية أصلها ثابت وفرعها في السماء تحية لو عرضت على السماء لكانت كوكبا منيرا مذكورة في القرآن والسنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هذه التحية وحن جعلها إلى نسود ويمرتدا يجودهان علماء شرفت بدن إسكاجي يميد ملك لدوان أيضا وجود كود وياهي كتشجع يودعينتا كتشجع رماه دينتا يودعينتا دلكودا يدتكودا ينفعفينتا شريعة الإسلامك وحن لنا علماء aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhawaada kuna soo dhawaada magaalada Madoogaasho marka xigto waxaan si khaas u soo dhaweynayaa xildhibaanka hadda xilka inoo hayo Sayid Maxamed Hiire Gaarane oo yaani shirkeenan soo ajiibay kana soo qayb galay macnaha Sayid waxaan ka wadaa mudanaha degmada Lagdheera ila ergaas waa Carabi waxaan leenahay mudane soo dhawow ku soo dhawow dhalinyarada culimada ahlus sunna wal jamaa qayb kamid ah oo maanta magaalada Madoogaasho shirku lahayd ayadoo ujeedkoodu ahaa intii hore aan u soo xusay sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa ragga kale ee walaalaheen ah ee xilalka kala duwan u socdo sida Cabdiqaadir Carabduur oo uu joogo walaalkii oo yaani Maxamed Carabduur walaalkeen ninka la yiraahdo Khayrow Cabdullaahi oo uu matalahayo saaxiibkay Shire Maxamed Shire aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa insha Allah taala culimadan maadaama deegaamaha reerka uu dago iskaga imaadeen waa dadkiini waa culimadiini waa dhalinyaradiini ku soo dhawaada xafladoodan ayaga maanta ay qabsadeen soo dhaweyntaas kadib waxaan rabaa inaan iraahdo laba qodob
وقضب عامه الله كعبسنا أسفرنا si caam ah si khaasane mas-uuliyiinta iyo xilaldoonka dadka hadda xilka doonahayo inaan u sheegno wixii nabiga uu sheegi jiray calayhi salaatu wasalaam yaquulu allahu subxaanahu wa tacaala fi kitaabihi alcaziiz waalcasri ina alinsana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu الsaalixaat watawaasaw biاlxaqi watawaasaw biالsabri ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وكما قال عليه الصلاة والسلام ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن الله سبحانه وتعالى ودارتي وحكو دارتي والعصر zabanka casarkana waa lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasiraa casru rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam xilliga nabiga calayhi salaatu wasalaam nafsa salaatina waa lagu fasiraa oo salaada casarka qudheeda ilaah wuu dhaarto wuxuu yidhi ina alinsaana lafii khusrin insaankoo dhan khasaaray ku sugan yihiin buu yidhi ilaah markuu khasaaradaa si caam loo sheegay dad buu soo reebay oo uu sheegay inaysan khasaaro ku jirin khasaarada waxyaalaha lagaga badbaadahayo ilaah wuxuu ku tilmaamay ila aladiina aamanuu wacamiluu الsaalixaat kuwa ilaahay iyo nebigiisa rumeeyey sala allahu calayhi wasalam oo iimaan dhab laga helay waxdaaniyada ilaahay qiray haddana iimaankii markuu ilaahay u gartay oo islaamnimadii ilaahay u gartay oo ilaahay u hoggaansameen ilaah uu u sahlay wey inay camal falaan camalka wanaagsan ay la imaadaan ee shareecada waafaqsan وعملوا الصالحات كدره لأن إيمانك هذا عمل قدرين معنا ما سمعنا يو هذا عملك صالح الله إيمانين وجود بي إيمانك عملك ذاتك كلا أشهى أو حق قاس ذاتك قدر دارمي حقي هذا الله ولا هدي له أدبو علوسي الصبر يدلقات هذا موجي أو معصية كصبري ضاعات كصبري مصائب كانوا كصبري أفرت أرمود بخسارة ولا بحاوي الله سبحانه وتعالى الإيمان والعمل الصالح والوصية بالحق والصبر إيمانك ولا لا إيمانه أنت آيات الغشاء وحال هذا سورة داسو سورة القرآن كأو قابن سورة كميدوي ولذا وحال هذا وحي كوبتي مسير الإنسان قفك إنسان كمسير كيس ولا بيسوق كوبتي هذا ومرك ولا ليال qof waliba wuxuu doonayaa inuu aakhiradiisii oo ilaaliyo kana badbaado way waxyaalaha jiraan waxa la doonay marka nabigeena wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam kullukum raa'in wa kullukum mas'uul an ra'iyati qof waliba waa raaci baa la yiraahdaa waana la weydiin wixii la raaciyo si gaar ahaaneed nimanka yani inbiyadaanada iyo madaxdu iyo qof kasta oo muslim ah oo ilaahay uu wilaayo u dhiibay waxa la rabaa wilaayada inuu ilaahay kaga baqo waxa la doonay inuu ummadda kala geynin awalan naftiisa inuu u yaabo asaga awalan nafta markuu u yaabo waxa dhacaysa ficil wanaagsan iyo qol wanaagsan inuu sameeyo marna kama isheeg ma taqaanaayo ma inuu khaldamo oo yacni shariicadii barbar ma dhacayso hadduu asaga ilaahay ku xirin wuxuu kaga badbaadi karaa arrimahaas diinka islaamka inuu barto diinta inuu barto chansiga uu hasto qofka mas-uulka ah hadday tahay nafaas hadday tahay waxbixin caafimaadka uu hasto waa waxaysan dareensanin mas-uuliyiinta waxaad moodaa in la yidhi diinku ha baranina maadaama diinka ay baran waayeen waxaa sahlanaanaysaa inuu khaladaad badan ka dhaco hadalkooda lagu kala fogaado wax badan oo khalad uu ka dhaco hadday horay u soo baranin haddana markaa ayadana aysan baranin waa wax qiyaamaha u yaallo xisaab oo taalla weeye sharafta waxay ku jirtaa marka in qofka ilaahay uu ka baqo xilkiisa uu guto si daacadnimana uu u guto ummaddana uu ka ilaaliyo qaybinta iyo kala fogeynta arrimaha asaasiga oo yacni caafimaadka uu ka mid yahay waxbarashadina cinaayo gooni uu siiyo maadaama xilka loo dhiibtay midda xigta waxaan rabaa inaan sheego ahlu sunna wal jamaa maxay yihiin ahlu sunna wal jamaa maxay yihiin horta maxay yihiin maxay yihiin ayaga ahaantooda doorkooda faafinta diinta islaamka hadday tahay xilli hore
hadday xalli dhow tahaybo yaan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo ahlu sunna waljamaaca waa dadka yani u nisba sheegto aaminsan wixii ay aaminsanaayeen salafka ummaddan maa yajibu lilah wamaa yastaxiilu calayh wamaa yajuus wamaa yajibu lirusuli wamaa yajuusu wamaa yastaxiil dadkaas salafka muctaqadka ku raacay dadkaasa ahlu sunna waljamaca la yihahda wamaca dalika waa asnaaf waxay u kala baxaan muxadisiin mufasiriin luqawiyiin waa dadka shareecadan usoo halgamay ma jiro kutub muctabar ah oo qoran oo lagu intifaaco ilaa waxaa qoray in ashcari ah maba jiraba la heli maayo kutub caalimulislaam lagu akriyo oo uusan lahayn yani kutub maxaan ka wadaa alkutub almusanafa kutubta la qore hayr alqur'aan kutubtaas ile asagu musanaf ma ahe qur-aanke kutubtaas la qore ma jirto kutub uusan lahayn waaxid qof aan ashcari ahayn qof aan ahlu sunna ahayn ka bilaab axaadiidu dadku si fudud baa wax loogu sheegaa axaadiidu dadku waxay yaqaanaan waa 40ka kitaabka horeeya la akhristo laga bilaabo muhaasitaha waxaa iskale ashaaciro dadkaas iskale weeye muctaqadka ahlu sunnaha ay aaminsan yihiin waa wixii ay aaminsanaayeen almadaahib alarbaca ilaa qolo yaroo xanaabila mooyaane waxaa la yihahdaa madhabu yani alimaamu ashcari waxaa isku waafaqsan ashaaficiya walmalikiya walxanafiya wa fudalaau lxanaabila waa isku muctaqad dhammaantood ilaa masaa'il yar oo yani khilaafkoodaan sii fogeyn mooyaane dadkii haddaan nahay soomaali aan usoo noqono hadday tahay gumayste hadday tahay yani shareeca diin dad la baro waa dadkii dadka diinta soo faafin jira wey kasoo bilaab axmed gurey sida cabdilla xasan dadkaas kasoo bilaab waxaa suufiye ah oo saalixiin ah saalixiye ah qaarkood sidaas markii in loo dareemo oo yihiin dadkan dadkii diinka usoo halgamay ee turaadka hadda la isticmaalahay la dhaxlay dadkii ummaddan ooga tag inay yihiin haddaan usoo noqono deegaankeeni iyo dalkeeni waa dadkii u beri jiray shareecada islaamka yacni fani ummadda u beri jiray hadduu fiqhi yahay hadduu xadiid yahay ee kutubta xalaqaadka ah ummadda beri jiray ee jahliga lagaga bixi jiray dadkaasaa la yihahdaa ahlu sunna waljamaaca waana sidoodii waana dadkay u badan yihiin guud ahaan ummadda islaamka dadkay u badan yihiin dadka u badan wey ummadda islaamka ilaa markii laga reebo yacni dad yar oo yacni shirdimah qaliila kooxa yar yar markii laga reebo ahlu sunna waljamaaca adduunka isaga ayaa u badan wey waxaan rabaa marka inaan hadalkaygii kusoo gunaanado dadkaasaa la yihahdaa ahlu sunna waljamaaca dacwadana doorkaas ka soo qaatay nabigana uu ammaanay sala allahu calayhi wasalam nabiga ayaa yidhi magaaladan qustandiniil waxaa furan doonaa amiirkaas iyo ciidankiisa iyo yani oo u nicmo badan buu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa nin ashcari ah haddaba walaalayaal markaa hadday yihiin muxadisiin hadday yihiin suufiyo oo dad ehlu tasawuf ah tasawufka waa dad yacni dahaarada waa laba qeyboodoo dahaaro badani ah iyo dahaaro xisi ah dahaarada badaniga fiqiga yaa ka warramay hadday tahay dahaaro tahay xisi ah ama macnawi ah oo qalbiga qaabkii loo sifeyn lahaa ah fanniga ka warrama waxaa la yihahdaa tasawuf ayaa la yihahdaa wey dadka fanniga baaca ku leh kuna dhaqmay ee raacay baa haddana suufiyo la yidhaahdaa meeshaa marka waxaa ka dareemaysaa suufiyo iyo ahlu sunna waljamaaca ahlu sunnay kor ka yihiin suufiyadu waa dad shareecada si dhab ah ugu camal falay oo sinfi ahlu sunnaha ka mid ah muctaqadkan ay isku mid yihiin ahlu sunna waljamaaca marka waa dad nooca ah waa dad aan dhibaato ka shaqaynin waa dad yacni mataqaanaa bulshadooda had iyo jeer wanaagga la garab taagan waa dad inna haba yaraatee aan ku mashquulsaneen qofka mas-uulka ama siyaasiga ah daba taagni iyo daba orod iyo halkan ii istaagiyo dad shaqadooda ay tamaa shaqadaa marka waxaa iska leh waa shaqadii nabiga laga dhaxlay calayhi salaatu wasalaam ma aha dad yacni mataqaanaayey dariiqyada dadku istaago waxaan marka insha allahu tacaala madaxda ku boorinaynaa sharaftoodana ay tahay in ay bulshadooda inay bartaan dalkoodana u naxaan dadkoodana u turaan waxyaalaha jiro ee bulshada ay u baahantaha oo waxqabadka ahaana aysan ka gaabinin arrintaas ay ku xihan tahay in la helo macrifo dhab ah la taliyaal rasmi ah wuxuu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam nin saxaabadiisa iyo dadka
ehlul yacni mataqaanaa ehlu macrifada ah mushaawaro la galo haddaad ra'iis tahay oo adigu ilaahay kaa dhigay waa inaad la taliyaal fiican leedahay maaha inaad samayso dad la taliyaal xun ah oo ummaddii kaa sii fogey maaha ummadda inaad ka cararto arrintaas aniga hadalkay kusoo gunaanadu hayaa waxaan leeyahay madaxda waad mahadsantihiin si sharaf badan baa shirkan maadaama uu yeeshay culimada ayaga iska lahayeen ood noo timaadeen aad baan inii soo dhawaynaynaa si fiican baan inii qaabilaynaa cidaan yacni mataqaanaa riixaynana maba jirtaba meelaan joogno dhaqankeennana maaha wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu meesha hadda aan joogno waxaan leeyahay culamo soo dhowaada magaaladiinni waad joogtaan dadkiinnana waad la joogtaan marka dhammaantiin waan idin soo dhawaynaynaa marka labaad waxaan salaamahayaa embigeenna maxamed hire iyo madaxdeenna kale waxaadda xil xay iyo waa xil doonahayaba dhammaantiin waxaan idinku salaamahayaa salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh bacda salaam kolley walaalkeema si fiican inoo wacdiyey guddoomiyaheena sheekh faarax anigana insha allah isagu maan raaci doonaa أولا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلهي سبحانه وتعالى وحكول يهي قرآن كيساء يا أيها الذين آمنوا وردتكين المؤمنين تهو اتقوا الله إلهي كعب صدا وكونوا مع الصادقين هو رهنت الشيء هينا كمن نغضع ورنها الله الشيء ولا اليال إلهي سبحانه وتعالى والله الله يددك مؤمنين تاه ونن أمرها لبا شيء أيضا أولا أصيك عبسا عبسا إلهي محيطهاي وأمر كي صلقات وحو كان ريبو لغته ثانيا وحان الأمر هيا إنا رونت الشيقنو marka kelimadayda wax yar waxaan kaga hadli doonaa insha allahu tacaala dadka madaxda ah awalan waxaan u sheegaynaa horta dadka madaxda ah annagoo dhanna wayna faran tahay ilaahay aan ka cabsanno runna aan sheegno nin barakaatu awalan waxaan soo dhaweynayaa culummada ahla sunna waljamaaca oo iskaga yimaadeen wadamo badan inta imaatana ay tahay intii magaalooyinka iyo meelaha ay joogaan dadkii waxbarayay ee mudarisiinta ahaa macaahidda dhigayay madaarista ragga dhigayay ay yihiin intay u badan tahay kumanaan iyagoo aana laga soo tegay marka culummada aad baan ugu soo dhaweynayaa magaaladan waa magaalada madoogaasha dadkii idinka soo horeeya ayaan ka mid ahay soo dhawaada qalbi furan qalban waa qaalaban waan idin soo dhaweynaynaa waana idinku faraxsannahay ilaahay baana iska leh arrintan suuragelideeda ay suura gashay taaniyana waxaa iska leh sidaad dareemaysaan imbigeenna maxamed hire oo xilka ninka hadda noo haya ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noogu dhiibay hortiina iyadoo suura gashay arrinkan ee aan la arag aad baana ugu faraxsannahay culummada kadib waxaan soo dhaweynayaa madaxdeenna oo ugu horeeyo imbigeenna oo ugu horeeyo maxamed hire soo dhawow baan leenahay waxaan kaloo soo dhaweynaynaa walaalaha annaga dhammaan soo dirsadeen wakiilada anigoon hebel aana dhehaynin
dhammaantiin soo dhowaada waa walaalihiin ku soo dhowaada qalbi furan iyo si walba ku soo dhowaada intaas saasaan leeyahay waxaan u sheegi marka dadka madaxda dadkeena madaxda ah hal kelima u sheegayaa bas waxaan leeyahay waxaad ogaataan dadkan halkan fadhiyo shirkan la shan baan ka qayb galay aniga inta hadda aniga aan tagay kana shanka ah waa inta aniga aan tagay shirarka aan tagay aan hadlay waxaa ka mid ahaa shirar dadkii in la qoorantee la damcay dhowr qof la bixiyey la qori waaye faraha ay ka baxeen oo dad ugaasiye iyo dad mataqaana xilaldoon iyo oday beeleed meelo badan iskaga yimaadeen ay soo wada xaadireen marka culummada meeshan fadhido waa dad yar oo lasoo xule meel walbaba in yar laga soo qaaday kumanaan baa ka dambaysa oo raggan dadkii mataqaana la midkaa un waa culimmadiini waxaan firi dad badan oo waxaa suuragal ah oo dadka annaga ah ay ka dhadhacsanaad hadda ka hor inayna jirin ba culimo ahla sunna wax yidhahda suuragal waaye in ay u garan jireen suura xumeen dad yacni mataqaanaa xoogaa meelaha ama mataqaanaa qaadkii wax ku cunaan in ay u yaqaaneen ahla sunna wal jamaaca kuwan bas waay marka inaynan ahla sunna inay badan tahay oo cadadkooda uu badan yahay aanan la soo koobi karin oo dadkiinan ay yihiin yaan idiin sheegayaa soo dhaweeya u istaaga waad ku gaaraysaan guul iyo liibaan haddaad soo dhawan waysaana ayaga ilaahay baa garab way soconayaan xafiiska markaa adiga aado ninka uu aado ayaga qur-aanka kariimka aadayaan wayna soconayaan marka nin baa hadal uu dhahaan kusoo khatimi nin madaxa ah wuxuu yidhi oon hebel hadda aana dhehaynin mar walbo in la idin qabto la doono dalacaad baad ka qaadaan buu mar walbo dawladda inta la iskugu kintago in la idin qabto oo dam la idin ka dhago markii la doono wuxuu yidhi dalacaad baad ka qaadaan waana sidaa aan u fiirsana waa runba sida ayada waay marka insha Allah taala intaasaan kusoo gabanay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu